su-aashana hortaalla waxay tahay miyaa loo siman yahay hanaanka shaqaalaysiinta ee shirkadaha haddii aan si kale u dhigo shirkadaha qaab noocee ah ayay shaqaalaha u qaataan soo dhawow su-aashu iska yara baaxad weyn tahay marka meelo badan laga eegana duruufihii lagu jiray 20kii sano la soo dhaafay ayaa qayb weyn ka ahaa cadaalad darrada waddanka jirta ama ha ahaato shaqaalaysiin loo sinaado iyo arrin kale ha ahaato tusaaleyn waxaa kugu filan daabshiil keliya ma ahane dhammaan shirkadihii waddanka ka shaqaynayay haddii tuulo hebel ama magaalo hebel ay shirkaddu uga baahato in ay branjo ka furto waxa ay ku qasbanayd tuulada ninka odaga ka ah ee ugu tunka roon maaliyad ahaan iyo xoog ahaan in inta loo dhiibay isagana uu keeno laba la dhalatay ama miyuu adeer u yahay mid la mid ah duruufta ahayd waa lagu soo gudbay ilaahay mahadii waa lagu soo badbaaday ceeb ha laga dhigo ama ammaan ha laga dhigo sida doona ha loo bixiyo waxaa muuqata marka hadda in la iska waraysta laftigeed inay horumar tahay sida uu sheegay walaalkay ninkii iga horeeyay in halkan la yimaado oo fursad fan iyo wax la mida la isu yimaado la yiraahdo war horta cadaalad ma jirtaa in la isweydiiyo horta horumar laftigeeda midda koowaad midda horta isla qirno horumar weyn baa la gaaray oo ah in awood loo leeyahay in su'aal la isweydiiyo horta lama wada gaarin waqtigii laga gudbi lahaa ama laga gudbay in qofku si toos ah loogu shaqaalaysiiyo xirfadiisa xirfadu hadda ay abuurmaysaa culaysyo badan baa kambaniyada ka haysta inay helaan dadkii xirfadda ay u baahnaayeen lahaa marka xirfadii way abuurmaysaa marka ma aysan gaarin qofku inuu xirfad buuxa inta suuqa la yimaado oo iibiyo marka wali waxaad ku qasbantahay inaad mararka qaarkood ama kambaniyaduba ay sameeyaan qaarkood qof uu dhinacna isaga halay karo dhinacna wax ka bari karo inuu raadiyo waxyaabaha kale oo fududayn lahaa in laga gudbo arrintaa waxaa ka mid ah inuu jiro qaab sharci xakuma qaab shaqaalaysiinta inuu jiro oo qofka shaqaalahana xuquuqdiisa u ilaalinaya kambanigan lala shaqaynayana xuquuqdiisa u ilaalinaya si ay uga baxdo meesha inuu qofkan isku haleeyo kan ay isxigaan marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo ku saxmi doona processka laakiin weli lagama wada gudbin qaabkii ahaa wiilkan adeerka u ahaa ayaan isku halay karaa ee positionka fiican aan siiyo raggaa ka habboon gabdhaha waxaad moodaa weli inaan laga wada gudbin laakiin progress aan bilaabmay oranaya kambaniyadii ayaa wax shaqaalaysiinaya yaysan u muuqanin arrin negative wada ah waxaa weeye bilow aan rajaynayna insha allahu tacaala in uu horumar laga sii gaaro laakiin kambaniyadoo dhanna ma aha uma aanan jawaabin sida guud baan u jawaabay habka shaqo qorista dalkan waa sida ay mas-uuliyiinta kale hore uga hadleen ma ahayn wadadii saxda ahaa ee dadka lagu shaqaalaysiinayay inaysan shirkadaha ku shaqaynin waxaa intaas dheer inay shirkadahan maanta dalkeena ugu tunka weyn aysan gabdho ka shaqaynin oo ay u badan yihiin 95% iyo 5 in ka badan inay yihiin waxa ka shaqeeya ay rag yihiin ay gabdhihii goobahaas ku yar yihiin ha ahaadaan shirkadihii xawaaladaha bangiyada ha ahaadeen shirkadaha kale ha ahaadeen aad waxaa ugu yar inay gabdho ka shaqeeyaan shirkadaha maanta dalka ka jiraayay dadka ka shaqeeya inay yihiin dad aanan hab cadaalad ah ama xulid sax ah loo marin habka shaqo qorista dalkan laga qoraahay qof kastoo Soomaali ahna uu garan karaa wuuna ogyahay shirkad kastoo Muqdisho ku taalo markaad tagto waxaa garan kartaa cidda shirkadaas iska leh iyo dadkooda kaliya inay meesha 90% joogaan hal qof oo laga maarmi waayo oo laga yaabo aqoontiisii inay ku xiran tahay in ay shirkadii shaqeyso kaliya inay yihiin dad ka dhex muuqda inta kale ay yihiin dad lagu keenay qaraabo saaxiibtinimo oo aan meeshii ka muuqanin aqoon iyo in shaqooyinkii loo siman yahay la xayeysiiyo waxyaabaha sii dheer waxay tahay shirkadaha maanta dalkeena ka furan aysan aqoonin sharciga shaqaalaha private-ka oo ah oo dalkan leeyahay oo la yiraahdo law number 65 ama sharciga shaqaalaha 65 sharcigaas waxaa ku qoran qof kasta oo shaqaale ah xuquuqdii uu lahaa ee ugu horeysay bishaas fasaxa inuu leeyahay labada bilood oo ciidda ah inuu qofka xaq u leeyahay inuu haaf mushaarkiisa bil haafkeeda uu qaato uu xaq u leeyahay waxaa laga yaabaa qofka asoo shaqeynaya inuu ku dhinto ama shirkadda uu shaqeynaya inuu shaqadii ku dhinto inuusan qofkaas xaq u lahayn shirkadda xaq u lahayn oo qofkaas laga yaababa in uusan markii uu shaqadii ku dhinto uu ciddiisii ay dugtaan ama ay shirkaddii duugta kaliya ay bixiso
si sharciga ku cadna ay tahay qofka shaqaalaha ah ee asigoo shaqo gudanaya ku dhinta in diyadiisa lagu leeyahay shirkad. marka waxaa leeyahay habka shaqo qorista ha ahaadeen privateka ama ha ahaadeen publica oo ay dowladda ah waxaa loo maraa waddo qaldan. waxaana rabaa inaad toos u abaarto haddii aad tusaalena siin karto dahabshiil sidee shaqaalaha u qaadataa marka ay rabto shaqaale inay qaadato. innaga dahabshiil group shaqaalaysiinta dadka xirfadlayaasha ee shirkadda waxaa qof waliba u furan inuu keensado documentskiisa, interview laga qaado, la xusho sidii innaga nalagu qaatayba. anigu shaqaalaan ahay oo shirkadda u shaqeeyo, procedure iyo qaab la mariyaha jira oo ah dee impanel la horgeeyey, CV-gayga marka hore la helay, kadib guddi la hor fariisiiyey, kadib intaa la falanqaynayey, kadib final la dhahay waan ku qaadanay, waxaasaan kugu qaadanay ma aqbashay, kadibna ani la isiiyey ikhtiyaarka ah inaan ogolaaday in kale, deetana saa u ogolaaday maantana aan ku matalayo. I think inuu procedureka noocaas iyo wadada noocaas inay u furan tahay qof waliba. dahabshiilna waddanka oo dhan sida ay shaqaalaha u qaadato waa caynkaas. waxaa jira HR-ka waxa la yidhahdo head hunting oo ah dee qofkii muuqda ee gaar ahaan jagooyinka sarsare, iyo haddii aad meel ku og tahay qof wanaagsan oo shaqada 100% ka soo bixi kara waxaysiin uma baahnid oo qofka intaa u yeertad waxaa leedahay shaqada qabso. laakiin shaqaalaysiin markaan ka hadlayno waxa weeye shaqaalaysiin badan oo dee hadda sida innaga aan rajaynayno 2017 oo kale adeegyada aan furirno Somtel iyo dahab oo kale ma aha wax hebel iyo lagu soo koobi kara maaha. waxaa laga yaabaa in dhowr boqol oo shaqaale loo baahdo. arrimaha caynkaas oo kale ah waa lagu qasban yahay shirkaddu wayna samaysaa in la xayeysiiyo, la sheego, lala kaashto hay-adaha dadka shaqaalaysiiya. waxaa hadda ilaahay mahadi inay ka soo bilowdeen magaalada hay-ado u dhexeeya loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha laftigiisa oo the recruitment agencies-ki adduunyada lagu yaqiin inay yimaadaan oo ay siini karaan intaasoo qof loo baahan yahay oo kale. marka waan samaynaa haddii shaqaalaysiintu ay badan tahay iyo haddii ay yar tahay oo mar walba way dhacdaa in dadka loo sheego si qofka uga faa'iidaysto. laakiin haddii ay dhacdo mararka qaarkood inaad heli kartid qofkii munaasabka ah oo agtaada taagan 1 iyo 2 iyo 3 markaa uma baahnid inaad ama telefishin gelisid ama idaacad ka sheegtid ama waxaas oo kale. marka shirkadda Somprint waa shirkad da'yar oo 2 sano ka yar joogta waddanka arrimahana ka shaqeysa. waxaan u baahannahay marka shaqaale annaka halku dhigeeno normally waxa weeye 3 kelmadood waa curin, qurxin iyo daabicid. saddexda baan ka shaqeynaa. fikri baan curinaa, qofku wuxuu u baahan yahay annakoo ka shidaal qaadanayna ama ka dab qaadanayna ayaan fikri curinaa, waan qurxinaa waxa design-ka la yiraahdo ayaan ku sameynaa, kadibna waanu daabacnaa. marka wax badan ayaana ka daabacnaa. مثلا daabacaadaha annaga markaan dadka u daabacayno wixii kun ka yar koobi waxa weeye qofka isu bixin maysaan idhaahnaa. marka production wuxuu dhowe. marka shaqada aan u baahannahay qayb waa production oo waxa weeye waa wax ku xira technical mashiino la operate garaynayo. marka suuqu badanaa ma diyaariyo shaqaalaha aan u baahannahay maxaa yeelay shirkado naga soo horeeyo dad inta tababaray dad badan laga qaadanayo ma joogaan suuqii surplus u yaalla shaqaale. mararka qaarkood waxaan ku qasbanaanaa inaan aadno dibadda ka soo shaqaalaysiino dad. waxaan aad uga jeclaan lahayn inaan helno maxaan ku raahdaa dhalinyaro Soomaaliyeed xirfadda aan u baahannahay leh. marka inta aanan horta shaqaalaysiin waxaan musuudi ka codsanayaa inay ii ogolaatay inaan intaas horta hore aan fahamsiino dadka, kadib markaas aan ka hadalno qaabkaan u shaqaalaysiinayno. qaabka annaka shaqaalaysiinayna istaraatiijiyadda qodobka ugu horeeya waxaa weeyaan qofka shaqaalaha ahi asaga ayaa shirkadeena u ictiraafnaa asadka koowaad inuu yahay. hantida maguurtada ah ee aan shirkadda ictiraafsannahay ee koowaad ee labaad ee saddexaad waxaan u naqaanaa shaqaalaha. maxaa yeelay haddii aanan haysanin shaqaalaha saxda ah mashiinku nooma shaqaynayo, macaamilka looma adeegayo. marka qaabka aan u qaadanahay waxaa weeye purely ama maxaan ku rahdaa xasriyan waxaa weeye waa qaab ku salaysan xirfad iyo mihaniya. qofkaan xirfad ma u leeyahay shaqada loo qaadanayo